ra-iisul wasaaraha dalkaasi qatar ahna wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi bin naasir bin khaliif al thani ayaa xafiiskiisa magaalada dooxa ee dalkaasi qatar waxa uu ku qaabilay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya sadiiq xirsi warfaa oo booqasho rasmi ah ku jooga dalkaasi. ra-iisul wasaare cabdulaahi bin naasir iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka wada hadlay xiriirka iyo xoojinta iskaashiga labada dal, waxaana uu ra-iisul wasaaraha qatar bogaadiyey dadaalada ay dowladda soomaaliya ugu jirto dib u dhiska dalka iyo horumarinta bulshada. kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii dowladda dalkaasi qatar ay u ballaarin lahayd kootada soomaaliya ee shaqaalaha ay dibadda ka keensato dowladda waddankaasi qatar si fursado loogu helo muwaadiniinta soomaaliyeed. waxaana sidoo kale laga hadlay dib u howlgelinta machadka horumarinaya iyo maareynta soomaaliya ee sidam, dib u habeynta ama dib u qaabeynta heshiis ay labada dal galeen sanadkii 1983 oo la xidhay ama la xidhiiray iskaashi shaqo wadaag iyo horumarinta bulshada. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya sadiiq warfaa ayaa dowladda qatar waxa uu uga mahad celiyay taageerada ay siiso soomaaliya waa dowladda soomaaliya iyo shacabkuba. ra-iisul wasaaraha dalkaasi qatar ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dowladda qatar ay ka go-an tahay taageerada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sadiiq warfaa ayaa muddada uu ku sugan yahay dalkaasi qatar waxaa la soo wariyay in kulamo uu la qaadan doono madaxda sare ee dowladda dalkaasi qatar. ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya dalkaasi bakistan ayaa sheegaya in dhulgariir xoogan uu ruxay magaalada caasimada ee islaamabad iyo sidoo kale magaalooyin kale uu ka agdhow siiba bariga wadankaasi afghanistan magaalooyinka dhaca. dhulgariirka ayaa cabirkiisu lagu qiyaasay 5.8 cabirka dhulgariirada ee magnitude, iyadoo lasoo warinayo in ay u badan tahay magaalooyinka dhaca bariga gobolka punjab. waxaana lasoo warinayaa in ka badan 400 oo qof ilaa hadda in dhaawacyo ay soo gaareen. mas-uuliyiinta dowladda wadankaasi bakistan ayaa sheegay in kooxaha gurmadka degdega hadda ay la tacaalayaan xaaladda, iyagoo sheegay in tirada dhaawac uu soo gaaray ay xaqiijin ay gaarayso 450 ruux. waxaa jira guryo burburay oo dadka la aaminsan yahay in hoostooda ay ku jiraan, iyadoo suuragal ay ka dhigeen laamaha caafimaadku in dhimasho ay jiri karto.